madax dhaqameedkan iyo waxgaladkan kala duwan oo ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa shir jaraa'ida oo ay ku qabteen magaalada Burco waxay si rasmi ah shaaca uga qaadeen inay taageersan yihiin shir dhawaan laga iclaamiyay magaalada Cerigaba xarunta gobolka Sanaag kaasoo ay ku dhawaaqeen waxgarad taageersan xisbigaasi odayaashana sidoo kale waxay ka hadleen doorashadii ka dhacday dalka waxaana ka mid ah hadaladoodii baraa'atu min Allahi wa rasuulihi wa hadalkan ka bilaabayo maanta hadalkayga aayada quraanka ah suuratul bara annagoo ah salaadiintii ugaasiyadii iyo chief caqiladii gobolka Togdheer ahaana taageerayaasha xisbiga wadani codka siiyay marka hore lala shaqeeyay halkan maanta waxaanu kaga hadlaynaa annagoo aan ku hadlaynin af cid gaar ah iyo af xisbi midna laakiin ku hadlaynaa xuquuqdayadii iyo codkayagii iyo waxa weeye xorriyadeedii la boobay annagoo ka hadlayna waxa aan marka hore halkan maanta ka taageeraynaa oo ka soo dhaweynaynaa walaalahayaga reer Sanaag ee ku baaqay in shir la isugu yimaado magaalada Cerigaba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku taageeraynaa waanu tegaynaa waanu ka qayb galaynaa waxaan ka codsanayaa nimanka geeyay ciidamada militariga iyo booliiska iyo RRU-da geeyay Cerigaba si degdeg ah uga saaraan Soomaaliland waxa loola soo 26 ka sanadood ee ay dhisneed waxay soo martay marxalada kala gedisan oo Ilaahay naga soo gudbiyay sharci baynu samaysanay iyo heshiis baynu galnay inaynu dimuqraadiyad u gudubno oo la isfaro lagu dhaqmo oo la isdoorto way dhici weeyday taasu waa la isboobay oo waa la isu bareeray oo codkayagii iyo karaamadayadii iyo sharaftayadiiba waxa weeyaan waa la afduubay wixii wadanka ka dhacay ee boob lahaa ee xaraan lahaa ninkii tartamayay dambigeeda ma leh laakiin waxa dambigeeda leh Saleebaan iyo Ziilaanyo iyo intii ku xeereed waxaanu leenahay Sanaag iyo Cerigaba ragga warka ka soo diray raggaasaanu annagu midaysannahay raggaasaanu shir la gelayna talada ninkii ka hor degdega waa yeelkii ee ka hor dhaca laakiin raggu hadduu talooyin badan soo galay oo in badan soo halgamayay oo shirar lahaa oo ballan lahaa inuu ka hor dhaca maaha raggii ay sogaadeen waa in tala la isula yimaada waxaanu leenahay raggaa ayaanu annagu isku xidhannay haddaanu shillaanayna annaga iyo wixii naga tala qaataa waxaanu tegaynaa Cerigaba shirkaasaanu gelaynaa wixii Ilaahay nagu alhaamiye waxay nala noqoto maanu aayaha kaga tashanaynaa doorashadii dhacday waxa weeyaan aynu soo marnay oo aan hab xalaala oo musharax madaxweyne oo ku tartamaya af qabiil ay barnaamijkiisu ay ahayd tii uun baan rumowday madaxweyne Silaay halkaas soo taago wuxuu yiri isagoo laba nin oo musharaxiin oo muwaadiniin ay musharaxiin yihiin reer Shaxaaqi ayuu yiri hebel baan idinku oga hebel deebid godob muu gelin midna gashi laguma lahayn laakiin waxa weeyaan maanta cadaalad xumada kulmiyo horseeday ayay cirib xumadiis halkaas socotaa waxaan u soo noqonayaa shirka lagaga baqay gobolka Sanaag hadaan oday dhaqameedkii nahay awal bari ama waxa weeye reer Togdheerba anagu waan soo dhaweynaa waanaanu tegaynaa go'aanka xisbiga lagaga tashanayaa isku soo wada xoriyo shirkan ay iclaamiyeen waxgaradkan taageersan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaani wali ka hadal mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu baaqani ka soo baxay waxgaradkan gobolka Togdheer uu daba socda shirkaasi hore loo iclaamiyay Khalid Bakeele fogaana rag xorta Star TV Burco.